فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت طعما لا آثرت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. daawada ku soo dhawo barnaamijkeena dhacdooyinka nolosha. dhacdadan maanta waxaan ku soo qaadanaynaa islaan 65 sano jirtay oo mulxidad ahayd islaamka qaadatay. islaanta Margaret baa loo rajiray. islaanta waxay tiri waxa ku soo koray hooyo aabbo diin laawayaal ah oo diinta aan jeclayn oo mulxidiina. gurigayga ilxaad ba kownka ahaabay tiri diin maanan aaminsanayn. waxa tiri markan yara koraan yara weynaaday ayay nafteedu ilaah jeclaysatay inay yeelato. ilaah baan baaray xaqiiqadii baan baaray tiri. bal markan sii weynaaday markaas waxay nafteedu go'aansatay xaqiiqada inay ogaato. waxay socotaba kiristaankii baan galay. kiristaankii markaan galay gabadhan waxa u dhalatay dalka Scotland ay waxay tiri kiristaanka waxba waa faa'iidan waaye waxba shakigii haystay iyo xaqiiqadii aan raadinayay waxba waa ka tiri waaye waxa tiri waan sii raadiyay adiyaan badan baan akhristay waxay tiri 2 sano ilaahay baan laha baryaay bay tiri yaani iyadu waxay barya caadiya ay leedahay iyo hanuuniya iyo jidka toosan igu rida 2 sano baryaay bay tiri waxa tiri maalmaha kamida ayaan asbaranay ninka aan asbaranay nin muslim oo ahaa ninka muslimka aan asbaranay ayaa waxa igu yiri waxaan ku keenayaa kitaab way kana quraana bitir kitaabkii markuu ii keenay oo tafsiir ah oo mujalladaada kiigu hore baan bilaaway markaan sida u bilaaway tiri isla waqtiga aan bilaaway waxa tiri ooyin dhibco waaweyn ah iyo jirkaygiyo ay gashay runtii gariir iyo dhidid iga yimi intiba hal mar baan arkay tiri anigii baa shakiyay gabigaygiiba waan gariir dhidid baa iga yimi oo yin sida waaweyn baa iga soo daadatay waxa tiri waa shakiyay waxaan siri war malaha shaydaan baa ku diidan xaqiiqadii bad malaha ogaanaysaa malaha shaydaan baa ku diidan waxa tiri ninkii kitaabka i siiyay ayaan dib u la hadlay waxaan ku risaas ay ugu dhacday ina kula kulmaan rabaa waxa tirido barafnaayo oo aan bixi karin ayaan baxay tiri sababto xaqiiqadii ma raadinaya wala kulmay waan u waramay wuxuu igu yiri waxa laga yaabaa inaad islaamayso waxa tiri anigu markan hore aan islaamka akhrinayo waxaan islahaa oo bay tiri bal islaamkan wax laga sheegayo waa kuma dadku wax ka sheegayeen inuu sax yahay oo waxa aanu lahayn hada ogaad bay tiri laakiin xataa inaan islaamo oo diinta markaa qaato maan ku aansan bay tiri laakiin waxaan sii wada akhriskaba waxa tiri oo sheekhuna kolba wixii xaqiiqada ahaa ee diinta ay sheegaba aakhirkii waxay noqotay bay tiri in aan ku dhawaaqo ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasuulullah waxa tiri 65 sano ayaan mulxidad ahaa maanta muslim baan ahaa tiri meel baan ku noolahay bay tiri dad muslimiin aan ila joogin ilaahay waan baryaa bay tiri ilaahay ma kan baryaayo waxaan iraahdaa ilaah caruur baan ahay كل أنا قول شيء اللي إحنا كنا هذان إسلامي عربنا حبيت مركها رونهانتي وحي تلمام قصة داسنا النعمة وين أين وحي صنع ضدك إسلام كقصة وكرة وحي كلها تلمام يسا دأذو دنقفكو هجارة إسلامكم إلهي مكو حنون لدونه إلهي وحنون يا إنت سنكسو كوبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.